dhammeeyo ilaa dhowr usbuuc ay socoto marka waa daahni afarta labada September ugu dambeyn sanadkii dhaweed 14 September galaasay ku jireen ardayda cusub haddana u jeedaa maanta meeqa waay September meeqa joogtaa waa 8 waa malayna maanta 8 waay arji qabashada wali ku jirna marka waa daahni aad loo daa October waa gaarina October dhaxdeeda waxaan isleeyahay ayaa galaas ardayga sanadkan cusub uu gaari karaa inta kale waxa waay arji qabashadii imtixaanka diyaarintiisii fasal ku qoritaankiisii iyo kala saaritaankooda waxaas iyo waqtiga uu dadkii oo taaganna ma dhihi kartid bas waayo qofna ma qabanayno ma dhihi kartid dadka waxa waay nin walba imtixaanka inuu ku soo haramo ogeey yani in jaamacadda yani qofka Soomaaliya waxbarasho rabo ma laga hor istaago in arji laga qabto laga hor istaago waa buuxsatay iska bax lama dhaho laakiin maanta intii la qaban lahaa يعني واب استبرت إماذا صورة قلوة صورة قلوة حالي عشية كنت كنا ماشي شال الصباح ساعة بلاوني مخرب كي أنت كنت كنا مركي مخرب كلا جا صباح كذب أيان نري ودالي دت كنا ويدالي برت إماذا هيجي يلقوه هرمري مركي دت كشال الهرمري دت كلاتا نمبر سالسي مركا نقول بالنمبر كيسس مركو جارا لوعة نمبر هبل سوقل نمبر هبل سوقل سداس واحد ساسا لو قال وضع شغالها لبا قولي كلا فرديا قالada hubinaysa oo horeyso ardayga waxa uu wato u dheeyeen is waxba ka dhiman markii ay wixiis u dhamaadaan oo ay dheeyeen la yiraahdo waxa loo diraa qolada iskaanka dukumeenti saaraysa si computerka oo u tago kadib waxay ka helayaan ma qoladaas qolkaas ay ka soo dirayaan qolka kale taa leetag computerka fiirsana systemka dhax fiirina numberka meesha ugu yeeraa hebel waa soo fariis afar qofooda fadhiso afarta hal mar afar isla galayso afartaas nin walba ku shubaa macluumaadkiisa warqadii la siina imtixaanka maalinta galayso waxa laga soo xiriiraa telefoonkiisa ayaa la leeyahay telefoonka laga soo xiriiraa ugu wala soo dhigaa page-ka la soo dhigaa marka sidaas ay shaqada hadda ku socota maalin kasta saas ku soconaysa marka qof kasta oo yimaado waxaan rajaynaynaa inuu anaga ma naqaano kan wasiira wada iyo kan xildhibaana wada iyo kan manaqay adeera wada iyo wala yaqaan aniga wiilkayga imtixaankan uu galay waa ku dhacay isoo dhisay private ka aad ma jirto sababtoo maba garanaybo qofkan markii imtixaankan la saxayo oo kuliyada lagu qoraa qofku yahay gabar miyaa wiil miyaa kaaga miyaa ku kala miyaa ma garanaqaan numberkaas ku galaa kuliyada nasiibkiis marka nin kasta oo arday oo jaamacadan dhigto qalinkiisa geey qof yani qaraabanimo ama macallin oo meesha dhigo ama maamul uu geey ma jiro waa wareysan kartaan ardayda xataa waa wadanka waxyaalaha laga cabaado waxa waa cadaalad darro marka jaamacadda ummadda waxay rabtaa inay soo celiso ya cadaalad arday walba aqoontiisa oo ku meel maro taas waana adag tahay runtii waxbarashadeeda aad ay u adag tahay يعني أرضها ولا توجنا سفي عن وحلا برا هدي سفي عن وحي وجسوا بحوايو دي بالو علنا مثلا طبعا ما دو دكتا أم اللحو دكتا ما دك مدأ هدي كسر نقطة في أقسام وحليران نقتين امتحان لبعض لو علنا امتحان كاس لبعض دو كله دي بقول نقال هل سنة بيردرينا هدي كلو اسكتجا من كسيداس واي برا شدة حال صوص على جعلنا in oo la soo saaro waxa kale jiro ardayda yaani markay qalin jibinayaan 6 arday ugu darajada sareysa yaani afarta hore dibadda loo diraa deeq waxbarasho la siiyaa dalka Talyaaniga hadda oo ballan qaaday waa maqan yihiin labada ku xigtana assistant laga dhigaa oo ah yaani macallin professorada ayay noqonayaan kaaliye bare ayay u noqonayaan ولا شقالين سيداس أيها هذا شقالها كلا وجامعة أي أباهات أرضي ذي كقل جبسي جامعة أيها لا ترتنسية
ayaga dhexdooda haddii qof loo baahan yahay xafiisyada dad banaan ka yimid maaha ardaydeeday dib u shaqaalaysaa marka waxaan rajaynaynaa in hadda masalan kuliyadda waxbarashada sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa ka qalin jebisay 13 arday 13koodii toos wasaaradda waxbarashada wasiirkaa yimid anaa u baahan yidhi waa qaata waa la shaqaaleeyey shaqaalo waa kormeerayaal ayay yihiin hadda marka waxaan rajaynaynaa in yani dad taya leh 60 ilaa 70 arday haddii kuliyadda gasho marka la qalin jebinaa 25 30 soo harayso waa la kala tegaa waa la kala haraa sidii loo kala dadaal badan yahay ya marka waxaan rajaynaynaa qofka ka soo baxo inuu noqdo qof isku kalsoon isku filan aqoontii la siiyeyna ka tarjumi kara inuu noqdo. Assalaamu calaykum.